kusoo dhow Somali Voice in Norway marka ugu horeysa ma noo sheegi kartaa magacaada iyo mansibkaada. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdilatiif Cabdullaahi Axmed waxaan ahay imaamka masaajidka Beergan. Maxaa la gudboon qoyska Soomaaliyeed ee Norway looga geeriyoodo? Geeridu marka hore waa xaq, waa run, waxaan islaahay waa nolosha qayb kamida si guud sabirkii oo maanta khudbadii ka sheekeynayay iyo in loo diyaar garoobo xaaladaas inay mar walba dhici karto oo qofka family ayna ku dhicin argagax iyo wareer ayna ku dhicin. kullu nafsin dha'iqatul maut, cid aynan marayna ma jirto, dadka oo dhan waa wax u dhaxeeya. marka si guud waxa uu muhiim ah in islaahay malaha in runtaasi si loo wajihi lahaa. dad badanna waa naasnay, kuwa badanna waa la aasi doonaa, waqtiguna saas u socdaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu geeridan inoo kala fogeeyo kuwii ku cibro qaatan ilaahay naga dhigo. Maxay tahay maareynta ugu wanaagsan oo ay sameyn karaan qoyska laga geeriyooday? waniyo arrintaas horta geerida waxa ugu muhiimsan aad ka dhawaajisayba sheenow. haddiiba geeri dhacdo weliba Norway markay joogto waxay u baahan tahay maareyn oo reerka markay dhibaato ku dhacdo badanku way wareeraan. maareyntaasi waxay keenaysaa in la maareeyo reerkii iyo aaskii iyo arrimihii oo dhan cid agaasintay u baahan tahay. waxaana loo maareyn karaa sida ugu fiican in masjidka lala soo xidhiidho, imaamka lala soo xidhiidho, maamulka lala soo xidhiidho, waayo waxaan garanaynaa sida ugu fudud ee loo samayn karo. maxaa sababa xilliyada qaar in qoyska laga geeriyoodo wax laga weydiiyo sababaha uu u dhintay marxuumka ama marxuumadda? geeridu haddii ay tahay mid kadisa, dowladdu waxay ku qasban tahay si cadaalad loogu xaqiijiyo qofkan dhintay laftiisa iyo ahligii iyo nidaamka in isla xisaabtankaba in la helo sababta uu dhintay. arrinta awgeed baa waxaa dhici karta in boolisku ay ka fakiraan dhinacyo xun oonan laga yaabo qaraabaduba aynan ka fikirin oo ah in bar horta la baadho xaaladii ugu dambeeyey qofkan intaanu dhiban ka hor. marka ciddii ugu dhoweyd ee xidhiidh la lahayd ayaa su'aalo la weydiiyaa oo baadhis bay boolisku sameeyaan. baadhistaa waxay ku soo ogaadaanna way ka howlgalaan. waxaa kale oo dhici karta inay dee dembi uu jiray oo qofkiiba la dilay oo kale ama sababo kale ay jiraan. taana waxay ku qasbeen boolisku inay maraan arrintii qasabka ahayd in dee qoyskii la waraysto say wax u dhaceen iyo siday ahayd. laakiin haddii la ogyahay sababta qofka xanuunkiisu ku la sugayaba uu yahay, baadhis badanna looma baahna. maxaa sababa in mararka qaar qofka geeriyooday qalliin lagu sameeyo jirkiisa? obductionka ama in qofka la qalo iyadna waxaa keeni karta arrin la xidhiidha baadhista booliska in la helayo sababtii qofkan xanuunka, iyo waxaa dhici karta oo arrin dembi shaki looga qabo ay tahay. haddii ay hubaan inuu dembi u dhacay, xataa baadhista lama diidi karo, mar bay qasab tahay. marar baa la diidi karaa marka cilmi baadhis ay tahay. waxaa la sameeyaa badanka weliba ilmuhu markuu yar yahay iyo cilmi baadhis iyo ardayda inay bal wax badan ka bartaan baa la weydiiyaa. taana go'aanka waxa iska leh qaraabada qofkan dhintay uu ka soo jeedo. wayna diidi karaan, wayna ogolaan karaan. maxaa farqiga u dhexeeya in qofka geeriyooday ay aastaan qoyskiisa ama ay dowladdu aasto? labadu way kala duwan yihiin oo dee mid waxay ka dhigan tahay qofka qaraabadiisii baa mas-uuliyaddiisa qaadaysa oo agaasinka aaskan oo dhan ka mas-uula. mid kale ee jira ee badanka dowladaha Yurub in arrinta ku saabsan daryeelka hadday ilmo tahay iyo dad waaweyn hadday tahay iyo dadka oo dhanba dowladda tiranaga ka mas-uula omsor. marka daryeelka ay ka mas-uulka tahay waxay keenaysaa qofkii haddii cid aasata la waayo inay dowladdu aasi karto. waana jira xaalado badan oon ku aasnay. waxay ku kala duwan yihiin dowladdu kay qaadato ama degmadu ay mas-uuliyaddiisa la wareegto qof aan qaraabo lahayn, ahli lahayn, siyaabo gaara u dhinta, dadkiisuba unan joogin oo lanala soo xidhiidhay toosna way jiraan. qofka ma aasi kartaan. qofka dowladdu iyadaa markaa go'aan kale waxayna u aasaysaa sida ugu fudud badanka ee uguna dee dhaqaale yar. marka in wakhtiga la aasaya wakhti kooban uu noqdaa dhici karta mararka qaarkood. sidaa bay sameeyeen. laakiin haddii qaraabadu ay mas-uuliyaddii inay qaadato ay tahay islaam ahaanna qaraabadii uu ka tegay qofkan ayaa qasaba inay qaadato mas-uuliyadda oo ay aasato qofkan meydka ka dhintay.
wixii dhib iyo dheef ka yimaada labadaba iyagaa laga rabaa inay qaataan sida ugu fiicanna sidaasi weeyaan. muxuu yahay masaajidda doorka kaga aadan qofka ku geeriyooda Norway? waxaan qayb weyn ka qaadan karaa tala bixin. waxaan garanaynaa sida loo aaso, meelaha lagu aaso, waxyaabahaas oo dhan. waxaan ka qayb qaadanaa marka in salaadii janaasada in dadkii loo ogeysiiye ay tahay, in loo diyaariyo masaajidkii. qabuuraha halka lagu aasaya talaan ka siin karnaa, waayo arrimo fara badan baa jiro oo u baahan fahan. waxaa ka mid ah degmada qofkuu degan yahay in lagu aaso Norway, oo haddii degmadii uu deganaayo ka qornaa maahina meel kale uu ku dhinto, waxaa qasaba in la keeno degmadiisii asalka ahayd. haddii kale waxaa dhici karta in qaraabadu ay iska bixiyaan dhaqaalaha meesha cusub ee lagu aasayo. degmada uu ku dhintay waxaa kaloo ku xidhan tahay haddii ay leedahay qubuuraha muslimka. imika galbeedka oo kale, badanka degmooyinka ka tirsan galbeedka Norway ee Bergen ugu weyn tahay, uu siiyo Sotra iyo Askøy iyo dhammaan kuwa inagu meersan oo dhan ilaa Boos, dhammaan waxay wada leeyihiin qubuuro loogu talagalay muslimiinta. oo muddo dheer ka shaqaynaynay, shuruucda markay isbedesheen ay noo wada fududaatay. marka meelahaas oo dhan meelo lagu aasi karaa jira, oon tilmaanna ka bixin karno, tala bixin fiicanna ka siin karno. maxaa farqiga u dhexeeya looxa iyo sidoo kale dhagaxa la suro qabriga dushiisa? looxa iyo dhagaxa waxa shiina u dhexeeya waa un dhaqaalun baa u dhexeeya. looxu waa ku meel gaadh, waqti yaroo kooban baa loogu talagalay. dadka qaar muslimiintuna waxay jecel yihiin inay dhagaxaasi iibsadaanoo dhagaxaasi waa ka gaar weeyaan aaska. marka qofku isaga ayaa codsanaya oo dhaqaalihiisana iska bixinaya. dadka badanka marka la aasana dhaqaalaha, arrinta dhaqaaluhu dhibaato badan bay mararka qaarkood keentaa. waxay ku xidhan tahay qofkan dhimanaya dhaqaalihiisa qayb bay ka tahay, hanti hadduu leeyahay qayb bay ka tahay. marka haddii aunan waxban haysanna badanka dee dowladaha iyo degmooyinka mas-uuliyadda qaada. marka dadka qaar baa waxay sameeyaan, waxay bastiilaystaan dhagaxa. dhagaxuna lacagiisu waa qaali, oo qaar baa aad u qaaliya. kuma talina badanka in aad lacaga qaaliya loo bixiyo, oo qaar baa 30,000 iyo 40,000 iyo cirkabo kasii sarreeya. laakiin way fiican tahay haddana inay dadku ka warhayaan qabuuraha muslimiinta. waxaan badanka dareema inay aad u dayacan yihiin. taasina waxay keenaysaa qaraabadii ka dhimatay inaynan wax badan ka warhaynin. marka in laga warhayo, in dadku ay booqdaan qubuuraha. mararka qaarkood qofku naftiisaba u baahan yahay inuu iswaaniye isaga laftiisu, inuu qubuuraha iska soo booqdo. waa qayb islaamnimada ka mid a. ilahina wax ka baryaynaa inuu geerideenna iyo dhimashadeenna inoo kala dheereeyo, mid khayrlana uu inoogu dhammaystiro. sharci ahaan imise sano ayay Norway u ogoshahay in qofka geeriyooday uu qabriga ku jiro? Norway saad og tahay shiinow, 50% in ka badan, meelaha qaarkood 80% haddaynan kaba badnaynba, ayaa dadka waa la gubaa. oo gubitaanku baryahan dambe aad u faafaya. waxaa keenaya arrimaha diintii oo dadku iskaga sii fogaanayaan. waxaa kaloo keenaya arrimo deegaanka calaaqa la leh, iyo arrimo fare oo dhaqaale iyo space iyo arrimo noocaas ayaa jira. laakiin gebagabo ahaan badanka Norway waa la gubaa imika. alxamdulillah, marka inagu muslim maadaama nahay ayna bannaanayn qofka in la gubo, qubuurihii lagu aaseeyey alxamdulillah waan haysanaa. inta qabriga uu ku jirayo qofku 20 sano baa qaanuunka u qoran, oo Fred Steed baa la yidhaha waqtiga la ilaaliyey, oo lama taaban kara 20 sano. 20 sano wixii ka badan dowladdu markay u baahato bay qabriga ka saari kartaa, oo loo isticmaali karaa qubuuro kale iyo qaabab kale loo isticmaali karaa. laakiin si guud waxaa muhiim ah inuu qofku ogaado haddii waxay ka hadhaan qofkaasi ama wuxuu loogu tegay qabriga, sharcigu wuxuu dhigayaa in lagu celiyo ilaa waxaasi uu baaba'ayo oo la waayayo. looxan qaanuunka ee loogu talagalay waxaan oo dhan ilaa la waayayo in aanan la qodin weeyaan sharcigu. guntii iyo gabagabadii maxay tahay fariinta aad Somali Voice in Norway u marinayso reer Bergen iyo guud ahaan Soomaalida Norway? abwaankeenii weynaa Gaariya wuxuu yidhi, aaska aad baan ugu fiicannahay. arrintaasi waa dhaqan fiican in dadku markay dhintaan la isku tego, salaada janaasada, ducada in la isku tego. intuba waa qayb ka mid ah islaamnimadeenna. waana qofka xuquuqda la isku leeyahay, gaar ahaan marka reer ay ku dhacaan, dhibaato ay ku dhacdo, dhimasho dhacdo, waa in la iscaawiyo weeyaan. reerka dhibaato badan baa soo food saarta, dad martiya u yimaada, caawimaad bay u baahan yihiin, cunto loo kariyo u baahan yihiin, waxyaabo badan. marka intii islaamnimada ahayd
iyo intii Soomaalinimada ahaydba waa waajib in saaran ma filaya waajibka kale in saarna dee waa inaan u diyaar galowno dhimashada qofna ma garanayo waqtigu dhimanayo inaynu diyaar u nahayo Ilaahay aan ka cabsano oo is xasuusino geerida iyo xaaladaha adag ee qof walba mari kara marka alxamdulillaah rabbil caalamiin si guudna waa jira xiriir guudna waa jira si qaraabo ahaan qofka waa loo aasaasay Soomaali ahaan waa loo wada aasaa islaamnimada waa sidaas saxda intaas oo dhanba kaarkaas oo dhanba waa la isticmaalaa Ilaahay waan ka baryayaa inuu khaatimo khayr leh inuu soo khatimo wajazaakumullahu khayran